السلام عليكم أخيارتا ku xiran kanaalkeena qorshe media barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay dalka labaad ee caalamka ugu dhulka weyn leh inta aan ku guda jirno barnaamijka waxa aan rajaynayaa inaad heli doontid xog muhiim ah oo ku saabsan wadankaasi haddaba si aynu guda galno barnaamijka fadlan fiidiyoga like saar kanaalkeena subscribe ku qabo wixii fariin ahna noogu reeb comment-ka Canada waa wadan ku yaala waqooyiga America waxaanu ku fadhiyaa dhul ballaaran Canada waxay xuduud la leedahay dalka Mareykanka oo goboladiisa badanku ay ka xigaan koonfurta iyo gobolka Alaska oo ka xiga waqooyi galbeed dhinaca barigana waxa kaga dhagan badweynta Atlantika magaca Canada wuxuu asal ahaan ka yimid ereyga Canada oo ah erey ku jira luqadii dadkii asal ahaan loogu yimid Canada ereygan oo la macno ah village or settlement Canada waxay ka kooban tahay 10 ismaamul goboleed Canada waa wadanka 10aad ee ugu gobolada ballaaran dunida Canada waa wadanka labaad ee ugu dhul weyn bad ahaan waxaana ka dhul weyn oo kaliya Russia dalka Canada wuxuu ku fadhiyaa baaxad gaaraysa 9.98 milyan kilometer square ama u dhiganta 3.85 milyan miles square caasimadda Canada waa Ottawa waxaana mara oo ay caan ku tahay webiga Ottawa River Canada waxa ku dhaqan dadyow diin midab iyo dhaqanba kala duwan qarnigii 16aad waxa gumeystay Britain colony iyo dalkii Faransiiska maamul ahaan Canada waxay u dhisan tahay hab federalism ah Canada tirada guud ee population-keedu waa 37 milyan 742,450 ruux baasaboorka Canada waxa lagu gali karaa 101 wadan si bilaa fiisa ah Canada waxa ku yaala in ka badan 2 milyan oo haro harada ugu weyn ee Canada ku taala waa Great Bear Lake sidoo kale Canada waxa mara 8500 webiga ugu weyn ee mara Canada waxa loogu magacaabaa The St. Lawrence River Canada waxa laga helaa 20% biyaha firaashka ee macaan ee adduunka Canada waxay qayb ka tahay wadanada ugu dhaqaalaha iyo wanaagsan Canada sidoo kale waxa lagu magacaabaa ama lagu tiriyaa wadanada ugu nolosha wanaagsan Canada sidoo kale waxay xubin firfircoon ka tahay ururo caalami ah sida qaramada midoobay NATO G7 iyo wadamada barwaaqo sooranka ah Canada waa wadanka dimuqraadi ah oo ku shaqeeya systemka xisbiyada badan Canada hadda waxa xukunka haya ra'iisul wasaare Justin Bieler James Trudeau oo ku dhashay Ottawa sanadku markuu ahaa 1970kii waxaanu ka baxay jaamacadda British Columbia University sanadkii 1998kii GDP-ga dalka Canada waa 1.785 trillion lacagta wadanka Canada waa Canadian dollar Canada waa wadanka kaliya oo ka codayn kara qofka qaxoontiga ahi Canada waxa ay go'aansatay inta u dhaxaysa 2020 ilaa 2022 inay wadankeeda ku soo dhaweyso qaxoonti ka badan 1 milyan oo qof si bilaa shuruud ah inta waxaan ku soo koobaynaa barnaamijkii ku saabsanaa wadanka Canada assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh